haatan Gaza qaramada midoobay ayaa digniin culus ka bixisay qatarta sii kordhaysa ee ay keeneen bambaanooyinka aan qarxin ee ku baahay marinka Gaza iyada oo sheegtay in hal ka mid ah 10kii bambaano ee lagu rido qaso aysan qarxin taasi waxay la micno tahay in 10% ay fashilmaan oo halis ay noqdaan sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda miinooyinka ee qaramada midoobay ANMAS bambaanooyinkan aan qarxin ayaa hadda ku faafay meelaha sida aadka u degan ee Gaza taasi oo qatar weyn ku ah shacabka talaabooyinka waa tirakoobyada qaramada midoobay ayaa muujinaya intan iyo markii uu dagaalku u bilowday ugu yaraan 23 qof ay u dhinteen 162 kalena ay u dhaawacmeen bambaanooyinkan dadaalada lagu doonayo in lagu nadiifiyo haraadiga waxyaabaha qarxa ayaa wajahaya caqabado fara badan kooxaha caalamiga ee meena baarista ayaa sheegay in marar badan la isku dayay in la nadiifiyo intii lagu jiray xabajoojinta hubkaasi aan qarxin laakiin waxa la sheegay in lagu fashilmay sababo la xiriira xayiraadaha Israa'iil ee ku soo rogtay shaqadooda xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegaya in ilaa hadda aysan bilaaban hawlgal buuxa oo lagu nadiifinayo bambaanooyinkan iyadoo sababaha loo cuskaday ay tahay in Israa'iil aysan ogolaansho buuxa siin hawlgalka hay'adahaasi iyadoo xaaladda dhanka bini'aadanimada Gaza ay ka sii darayso hay'adaha gargaarka ayaa ka digaya in bambaanooyinkan aan qarxin ay qatar sii gelinayaan nolosha shacabka caqabadna ay ku yihiin bixinta gargaar degdeg ah dib u dhiska iyo waliba dhaqaaqyada dadweynaha ee guud ahaan jiida Gaza